walaalayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii ku salaysnaa oo daraska iyo saadaalinta filinka filo hadii jeerna waxaan soo qaataa qaybta markaad joogta qaybta kaleenta oo socota ayaan waxaan ku sameeyaa saadaalin anigii aragtideeda waaye runtii filinkan filo muddo dheer ayuu noo soo socday oo hadda waxaan maraynaa xalqadii 96aad runtii wuxuu soo bandhigay waxyaalo fara badan oo la xiriira dhaqanka iyo hab macaamilka iyo la dhaqanka Soomaalida gudaha ama dibadda haba joogaane waxyaalo fara badan oo nagu soo kordhay markaan dibadda nimid dhaqankaana bedelay sidii ilmaha sidii ay waalidkood ugu soo horjeesay waxyaalo badan sidoo kale waxaan rabaa qaybtan inaan ku soo qaato runtii waa qayb wacyigelin ah nasusaysan in Soomaalida dhaqanka ay leedahay ay tahay haddii wax ay helaan isla markiiba ay ka muuqanayso tusaale ahaan maalin dhawaad waxaa la soo saaray dad Soomaaliyeed oo gobolka Minnesota dacwad lagu soo ogay ayagoo lagu eedeynayo in ay dhunsadeen lacag loogu talagalay ilmaha mase COVID-ka in dadka la siiyo ama lagu quudiyo runtii waxa waaye Soomaalidu waxay tiraahaa dooro xarka wada cuntaa laakiin aftirisha is dheer tahay waxa waaye waddankan America waxaa ku nool ummado fara badan ku nool markii oo waxootaan ku soo galay ama kuwa ummadaha laga badan yahay laakiin dadkaas wax cunaan laakiin sama ka muuqanaysa laakiin Soomaalidu waxa waa dhibkan haysta annaga waxay tahay markaan 10 shilin helno oo shilin ugu soo ziyaado waxaa laga garanayaa dharkayna waxaa laga garanayaa guryaha deegaanka aan degannahay waxaa laga garanayaa baabuurta ama gawaarida aan wadana laga garanayaa isla markiiba marka Soomaalidu wax uma qarsoono marka waa qaybtan hadda filinka runtii oo shirifada ku masalayo waana dhaqan ka jira Soomaalida oo dhan hadda Soomaalida hadda lagu haysto qaar ka mid ah sanad kadib ayay waxay gateen baabuur qaali ah waxay sameysteen villooyin waaweyn dhisteen waddankan way ka jirtaa runtii waddanka waxaad arkaysaa nin iska bahalkii ah shaqaale caadi ah oo ku nool bilba bil ku nool oo falibaaga sugayo in saxiixo waxaad arkaysaa sanad ama 2 sano ka bacdi ninkii shaqaalaha caadiga ahay oo guryo dhaadheer dhistay waxay dhahay intuu ka keenay iyo intay ka timid ma jirto waxa uu leeyahay hambal iyo alleeyahay guryaha dhisatay marka wixii dhaqankii caadiga waxay noqotay marka xatooyadii iyo xumaantii waxay noqotay wax la isku dhiirigeliyo anaga Soomaalidu waa ugu sii liidana runtii waxa qofka hore ka soo baxaya hadda Shariif Halaag markuu la kulmo maslax waxay ka wada hadlayaan runtii waa dareemaya maslax wuxuu leeyahay war waa isbedeshay warliyo isbedel weyn ku dhacay maxay tahay marka maslax isla markuu dareemay in wax ku dhacay ninkii shalay garaashkiisa ka shaqeynay garaashkiisa ka shaqeynay oo maqaayada raashinka dafay sida uu labisan yahay quruxda ka muuqato iyo waxa ka tirada ka laalaado runtii wuu dareemay sidoo kale maslax wuxuu siinayaa warbixin ku saabsan in oo Maxamed Amiin iyo baxsan ee walaalo noqdeen wuxuu leeyahay dadka dhan way sheeleen marka sidaa daraadeed waxaa dhici doonto waxaa dhiman hibo oo runtii looga sheekay inay baxsan walaalo yihiin waana caddahay inay walaalo yihiin laakiin DNT la bedelay oo koronta booskeeda la geliyey marka taasna waxayna tusaysaa filinkan filo in qayb wax aan dhici karin in tajmacu bayn ukhtayn oo jirinbo lacnaa qofka laba naag oo walaalaha ma guursan karo diiniyan waa mamnuuc laakiin tan camal waxay ku dhacday macnaha aqoon la'aan iyo aqoon darro ay ku dhacday marka automatically maslax wuxuu u sheegayaa oo leeyahay dadkii way is wada heleen waxaa dhiman oo qura bas hiba ayaa dhiman baxsan maxamed walaali noqdeen marka waxaa dhici karto baxsan iyo hibo inay walaalo noqdaan sidaas daraaddeedna suurtagal ma noqonayso in laba walaalo ah aad kulmiso runtii hadalkaasi uma dhamayo Shariif Halaag oo runtii wax oo jeclaysan ama hadalkaas ma jeclaysan oo ka sii jeestay runtii waa xanuujiyay marka runtii filinkan waa filim tusaalooyin badan ka bixinaya dhaqanka Soomaalida iyo sida ay tahay
dhinaca kale halkan waxaa nooga muuqdo Sharif Halaag iyo Koronto oo runtii balan leh Mr. Right balantan runtii ay la leeyihiin Mr. Right waa balan hore u dhigteen marka wuxuu dardaaran siinayaa Koronto runtiina Koronto way ka soo wareegtay dhinaca noo muuqato dhinaci Mr. Right iyo Baldoos waxayna ku soo wareegtay dhinaca lacagta ay taalo oo Sharif Halaag ay noqotay Soomaalidu waxay jiraa labadii xaraan ku heshiisho xoolahaas xalaal kuma qaybsadaan marka waxa waaye waxaad ogaataa wax alaale wixii xaaraan ku soo galo qof ama koox ku talaga inay wax xadaan kooxdaasi qofka kale inuu sii xado oo sii bootiyo meesha ka bixiyo ayuu isku dayaa ka waxaan wax xaaraanay ahaayeen xaaraan awalba lagu heshiiyey wax alaale ma ayna ahayn Mr. Right runtii dacwo ayuu soo jeedinaya uu leeyahay Sharif Halaag muddo ayaan ku soo wacay waa iga qabo waysay midda kale Koronto Mr. Right oo asxaab ahaayeen dhinaciisa mayna fadhiisan waxay u badatay dhinacii Mr. Sharif Halaag ayay u badatay sababtan waxa waaye dhinacii beesada ayaa halkaasi jirto ee ka martay marka halkan waxaa ka dhalanaya dood dheer ayaa ka dhalanaysa oo u dhaxayso Sharif Halaag iyo Mr. Right Mr. Right sidoo kale wuxuu eedeynayaa oo eed u soo jeedinayaa Koronto oo leeyahay Koronto annagaa ku barnay ninkan annagaa naga goosatay ninkana la xiratay runtii waxa waaye dooda si u socoto waa la isfahmi waynayaa oo waxaa dhacayso tooyin jiraan oo lacagta marba meel la wareejiyo oo nin bangi ka shaqo u wareejiyo masalan lacagta yaa ku sii xaq in aad lacagtaas qarash garayso ama aad ku tasarrufto adigoon annagana la soo socodsiin horta runtii dooda meeshaas ayay ka bilaabanaysaa uu leeyahay markuu Mr. Right ku qayliyo Sharif Halaag wuxuu leeyahay horta ay ugu qaylin ee markaa ila hadlaysid waa inaad u hadashaa sidii qof macnaha edab leh waa inaad u hadashaa oo macnaha si asluub ila hadal waxa waaye Mr. Right taas ayuu runtii ka xanaaqayaa kabacdina waxaa dhacaysa meeshii labada qof inay iska hor yimaadiin oo Mr. Right hadalkaasi oo ah waxay ila hadashaa si edab leh uu qaadan waayo dabadeedna ujeeda dagaalku waxa ka dhacayo runtii isqabadkii waxa waaye leeyahay waxaan gadatay anaga waxba ma adasin waxa suurtagal ma noqonayso Mr. Right waa ku qoslaya waxa qoslaya Sharif Halaag Mr. Right ay ku qoslaya runtii waxa dhacaysa marka Mr. Right inuu la soo baxo bastooladii Koronto ayaa ka qaadayso oo kor ka saarayso runtii halkan waa halka sheekada arabina saadalinta aan sameeyno Koronto Mr. Right ay fidhiisinaysaa taasi marka waxay ogtahay Mr. Right inuu daacad u noqdo Koronto ay dhex gashay laakiin waxa soo baxayso meeshii Sharif Halaag inuu busal la soo baxo Koronto arrintaas ma guulaysan doontaa sida Right u dejisay Mr. Halaag mu deji doontaa meeshaas xabad ayaa ka bilaabo doonto firidaada ka dhiibo filo adduunyo wax kasta ka filo